السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacaygu waa Dr. Maxamed Xasan Sheekh Mahdi. waxaan ahay dhakhtarka ku takhasusay xanuunada ku dhaca afka iyo ilkaha. maanta waxaynu qaadan doonaa oo wax yar aynu ka hadli doonaa xanuunka ugu badan ee ku dhaca bulshadeena oo uu yahay cirid xanuunka afka qalaadna loogu yaqaano gingivitis. horta laba xanuun baa u waaweyn oo iliga ama goosaha ku dhaca. labadaas mid waa suuska, midna waa ciridka ama cirid xanuunka. maanta waxaynu ka hadli doonaa wax yar muxuu yahay cirid xanuunku, sidee lagu gartaa, calaamaduhu leeyahay, maxaa ka dhalan kara haddii la daaweyn waayo, iyo ugu dambeynta aynu ka hadli doono sidee baynu uga hortagi karnaa cirid xanuunka. marka hore aynu isla fahanno wuxuu yahay cirid xanuunku. cirid xanuunku waxa lagu qiimeeyaa xataa adduunka 70% inuu yahay bulshada inuu saameeyo uu aad ugu badan yahay. wax kalena maaha oo marka hore waxa muhiim ah wuxuu ka sameysmayo ama sidoo u bilaamayo in la fahmo. stages buu kale leeyahay oo haddii la daaweyn waayo waxay noqon kartaa in uu sii fido midba midka ka dambeeya. marka ugu horeysa wuxuu ka bilaamayaa cuncun oo inta badan hadhaaga cuntada ayaa waxay ku haraysaa iliga iyo ciridka halka ay iska galaan ama halka u dhaxaysa ciridka iyo iliga. spacekaas waxaa ku sameysmaya cuntada oo hadhaaga. haddii qofku uu nadiifin waayo waxa ku haraysa cuntadii waxay ku sameynaysaa waa marka koowaad halka uu ka bilaamayo. tan waxa ku xigaysa in cuntadaasi halkaasi haddii laga saari waayo ay adkaato. adayg marka ay noqoto burushku waxba kama taro. haddii uu cadaydo qofku waxba wax weeyaan kama go'ayo, wuxuu isku arkayaa isagoonan ka go'ayn. waxa dhacda bulshadeena in ay isku daayaan ama yiraahdo qofku iska baabi'i oo iska dhayalsado. taas waxay keentaa xanuunkaasi inuu sii socdo. marxalad wuxuu u gudbayaa la yiraahdo afka qalaad periodontitis oo ah xanuunkii inuu safiir uu sii noqdo oo intii markii hore uu taagnaa uu ka sii bato. tusaale ahaan marka ugu horeysa wuxuu taagan yahay xanuunkaasi calaamadaha loo yaqaano inuu casaan, sidoo kale barar meesha uu ku arko, iyo sidoo kale inuu dhiigayo oo cirid yar dhiiguna uu sameynayo ayuu qofkii isku arkayaa, iyo yaro cuncun yar inay meesha ay leedahay. kana midabkii ciridku caadiga uu lahaa ayuu maaragtay una lahayn oo cas yahay ayuu isku arkayaa qofkii. taasi waxay keenaysaa in haddii la daaweyn waayo hore ugu sii socdo uu sii fido. waxaa ka dhalanaya markaasi in uu sii socdo ciridkii xanuunkaasi uu aad u saameeyo, uu gaadho ilaa xataa lafta. marka waxaa loo yaqaanaa periodontitis, wuu sii fidaya. waxaynu isla fahnay iminka inaynu ay tahay xanuunkaasi xanuun ciridka ku dhacaya, welibana halka ay iska galaan iliga iyo ciridku uu saameynayo. calaamadaha lagu arko waxaa ka mid ah inay meeshii barar casaan midabkii hore uu lahaa ciridku uu ka duwan yahay, iyo inay meeshaasi ay dhiigayso. mararka qaarna marka stage 1 uu taagan yahay inuu ku sameysmo cuncun inuu qofka uu ka dareemo meesha cuncunaysa. haddaba waxaynu eegi doonaa bal maxaa sababa waxyaabaha ugu badan ee loo yiraahdo way sababaan. horta koow waxa ka ah